سلمة رضي الله تعالى عنها maalin waxay u soo gashay nabiga kaleey salaatu wasalaam asagoo ooynay oona wato dhalo ay ku jirto caro markay weydiisana dhaladan carrada maxay tahay wuxuu u sheegay inay tahay carradii dhulkii lagu dili lahaa sayyidina imaam al-Husayn idan nabigeena kaleey salaatu wasalaam qof uu ooy anaga ma ooynayno ma murgoonayno ma ka hadlayno ma ka sheekaynayno cibar iyo duruus ma ka qaadanayno ardayda ma barayno en maxaa la dhahaa dhalinyarteena ma barayno كيف يا إخواني أيضا هل مر لغا شاكينا ما أرقنا أيضا هل مر لغا الله ما أرقنا مع أنه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كي سنوغو شاكي آل بيتك حدنا واجب وحوقو لغي نبي عليه الصلاة والسلام إنه بلاغاس ومحال لها وقد بيه بلاغي نبي قد بينا أين دادك علماء ورثة الأنبياء إلهي أنا قد أيا واجب أي كتاي ما أنت أيضا إني قد بيان إلهي كل جسم سوى قد بينين نبي قالوا أمري قل له إلهي واديه كري لا يسألكم عليه أجرا ماذا كويد سنة واحد إلا المودة في القربة أما عليه كري واجب عليكم المودة في القربة لكن إلهي مدهن قل لا أسألكم وشاق هذا قد به هذا الإلهي نواي هذا الرسول كي سنواي سحجة أنا الله يالان إذن موضوع واجب دروسي عبر إن لقاته أو محال الله لقى شيء واجب سيدنا الإمام الحسين ساس درت هذه إيو أصغى الربا إصلاح في أمة جده سيد أصغى بأشاغي لم أخرج أشرا ولا بطرا ولكن خرجت للإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم وحا أصاب بحي أمد أووغي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنان هجاجيو حالة ديدي maxaa dhacay in nin salaadaha ka tagay oo khamri cab ah ciyaal suuq ah oo wuxuu yahay la og yahay oo dadka ku hareersan dhanna dad fool xun ay yihiin arki doona hadda jeeshka xataa dadku uu doortay miska imaanin arrinkaas waa doortay Umar ibn Ziyad ninka la dhaho uu doortay jeeshka Yazid oo 30 kun ama 25 kun uu soo diray Imaam al-Husayn kaligiisa in maxaa la dhahaa lagu soo hareersado oo kuwii u yeerteen kulligood ay ugu baxaan oo maxallaha kulligoodi Sayyid Hussein ay dhulka dhigaan oo macnaha ay ka wada tagaan oo Muslim ibn Aqil oo Allah u dirin Sayyid Hussein inuu arrinka u soo fiiriyo oo markuu meesha u tagayna ay u marxabeeyeen gadaalihina nin walba gurigiisa isku celiyay markii Yazid oo maxaa la dhahaa laalushay kulligood intooda badan oo qaarna uu tahdiiday ay dib u wada noqdeen ay ba ahaan kuwii shalay u yeerteen waana ogaa in la dilay laakiin naftiisu u huray diinta islaamka naftiisu u huray in diintan islaamka la halaynin darteeda in umada awowgiisa alayhi salatu wasalaam wadaxun la marin darteeda dhiigiisu u huray naftiisu u huray alayhi salam wa radiyallahu ta'ala anhu wuxuna tusay mithaal ween aad u ween oo maanta lagu daydo لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كذلك سيدنا حسين حسميه أولادي صلبحي مالكي صلبحي أهل كيسي أهل بيت كيسي دان ولال كيسي حسن إيه هوينك ولال كيسي حسن إيه علمه ولال كيسي حسن إيه علمه سي أصغ إيه إسلامه سي ولا شي سي زينب إيه علمه هذا كل قوض لبحي كل قوض بابها لقصو سي إلا هوينك سيدنا علي زين العابدين أنت كلا ماشي مركي تغان والقصو هرير صدي سيد حسين سلام الله عليه جيش كاس صدم ككون أمركو هور استاغ وعقيل مسلم ابن عقيلنا لقد لي markuu soo diray soo hormari oo asaga dhahay soo bax kadib laga dilay haddana akhbaartiisa soo gaartay laakiin dhiigiisu rabay ummadan inuu soo kiciyo hurdada ka kiciyo dhiigiisu rabay in ummadan ay u noqoto shay ay maxaa la dhahaa dulmiga ku diidaan maxaa dhacay ma ansaxaayo asagoo kale oo joogo inuu dulmi ka aamuso awlaadiisana gadaashiisa saasoo kala ka soo baxday waxa kamid ah ان رق بدن او ان شاء الله تعالى آل بيتك نبيك كمid aan ka sheekay doono in sha Allah fi xalaqat qaadima marka maxaa dhacday markuu imaaday Imaam al-Husayn oo jeeshka hortiisa soo istaagay horta waa xasuusi wuxuu isku dayay in dagaal uu dhicin oo dhiig bixin asagoo isku dayayo dhiigiisi inuu ka badbaadiyo dadkan maxaa dhacay waa cadaabay ku mutaysanayaan wuxuu dhahay ama saddex option ayuu siiyay wuxuu dhahay aan iska noqdo idaaya waa ka diideen haye Yazid aan taga ana la tafaahuma ani asaga isla tafaahumayn ana la hadlay wuxuu iga rabana ana weydinay idaaya waa diideen haye thaqr thuqurta muslimiinta kamida meelaha ay dagaalaha gaalada iyo mushrikiinta ugu la jiraan aan iska aado ama meelaha maxaa la dhahaa wadamada degan beladaha islaamka degan aan iska aado waa ka diideen xidhan imma waxaad la mubaayacoonaysaa aad dhiibaysaa baycadii aad u duloowaysaa Yazid ibn Muawiya ama
وكدلينا ولا كرامة لا ولا كرامة أي جوابين وحسوسي وأسكت إنه حسوسي حيري انسبون أيها الناس انسبوني من أنا فيكم ورددي هو إيه نسبة شاقة يان نسبة شاقتا حسوستا إيه حسوسية مركاسا وحسوسنا هذا وحوليه وحنا ذرية النبي أنبياء إلهي دن ذرية النبي ما أنت لولك جوكت ماله كل جود وكجو أن لولك إلا أنك ما ندليسين ذرية النبي جينا ما دليسين هيركاس إيجارين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نولشيسا ملقا أوي من ملائكة كمد الباب كي حرتان أيقو كجرة سيد حسين أصاقلي وقف صدي وش شمي عليه الصلاة والسلام ملقا ويدي حير أتحبه مجعشه مركاسو يري بلا أو نعم وجعلها بير مركاسو حيري أما أن أمتك ستقتله ولا أمت هذا دل دون تكور هذا الكاس محاد الإنسان سوء قابل النبي عليه الصلاة والسلام مركتوك قابله سيدة أم سلمة وحيسوق شهنديسو اللي انت كدقيس عليه الصلاة والسلام ولم مرقوذي ولا حزني إيو مرق أسو زيادة مركاسو اللي بحورها مكو كان عرض وكل من دونه عرضي وحو كان الطف ماشي اللي يجري وقضالينا اللي بحي كربلاء كرب إبلاء لسكو دري كرب إبلاء لسكو دري ماشي وحلقو نفقوي آل بيتك النبي عليه الصلاة والسلام انت جوغين تضباطا إلا بنفسد iyo intii muxibiintooda ahaa khadamkooda ahaa oo Sayyid Hussein uu dhahay iska noqdo oo ay diideen ay dhahan bari awowgiina jannada marka uu tagaysin annagana idin la tagnaan rabnaa meesha lagu nafgooy hatta awlaadooda muluqa yar yar ma la dhaafin waxa lagu sameeyay Sayyid Hussein biyaha loo diiday asaga iyo awlaadiisi waa ibnu binti rasuulillah cidda biyaha loo diiday awlaadi rasuulka la oomiya biyaha loo diiday ogaada ikhwaani maanta markaan ka hadlayno mas'ala taariikhiya lama ahan maanta dad madrasadaas fikriyada ah wali fikrigooda wato nawaasib ah joogan sayyidna imaam al-Hussein asagoo cunugiisa yar muluqa saan gacanta ugu wado oo dhahay war ilaahay ka cabsada laba bari saddex bari biima cabin cunugaan la iisoo si asagoo ooynayo waxa la sameeyay jawaab waxa looga dhigay in fallaar lagu soo tuuro inta ay ka gasho dhinaca kale ugu baxdo aabiiso saan gacanta ugu hayo cunug 6 bil jiro taqriiban saasa loo dilay dhiigiisi gacmihii aabiis markuu ku daatay oo dhahay allahumma fashhad أخيرا سيدنا الإمام الحسين أي دلين مركي علمي ولا الكيسي سيد حسن لدمي أو علمه سقار بدن لدمي أصدق أخيرا دلين أصدق كل جيس صدق الله معي رضي الله تعالى عنه ومرنا قدال أنا نقنين مرنا موقف كيس أنا كنقنين مرنا أنا أقول أن يزيد إنهم حلال هلا مبايعوه هذا يزيد وهو أركاي رمز الفساد علامة ساين إنه إياهي سمبل إنه إياهي فساد كستو سمبل إنه إياهي corruption سمبل إنه إياهي evilness شر إنه سمبل إياهي ولذلك مرنا موقف كيسا كما نقنين إلى آخر لحظة رضي الله تعالى عنه أو قورتك قويان أشقى الآخرين إنه قورتك قوي أو ليراذو شمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه وحوك النبي السيشة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه كربلاء اللي مدري دوره هلكا كربلاء اللي مدري دوره وأنا سيد المالكي سعلي بن أبي طالب يا حديث لقوري مجموع ولا وحديث حسنة بوحيري استأذن ملك القطر ربه ملك الروبك فرب إذا ويديستي أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إلهي نواو إذنه مالين أم سلمة قريق هذا وتشوفه بيكسو بيغان تي زيارة دي أم سلمة وباع الباب كتاغن نبي قلنا من لفظ ليو فحسين بن علي أردي أصحاب قريب فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتلثمه ويقبله نبي دبرك كغبود بودي نبي رواد من كلي مرقيبه وحكوري تحبه ما تعشى يميا قاسوا النبي ها وان جعله وحكوري اما ان امتك ستقتله وهذا قالت امتها لا ديري دونت ويكاس إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ضربتنا ماشي اللي قد لي وأنت تسكران نبي حور نعم هاي تس مرقي وحبوا الله عيو عيد بسوق هذا ماشي اللي قد لي دونه مركاسو تسي عيد يرعسين باكو تشري بإليه أم سلمة عيد قادتي مرض هذا كشبتي ثابت وحديث كورنا يا أنس ثابت الناس بالبناني وحليه كنا نقول إنها كربلاء ماشي كربلاء اللي يجري علي بن ابي طالب وحير النبي صلى الله عليه وسلم
isagoo labadiisa indhoodii ilina ay ka qubanayso sala allahu alayh ali wasalam. markaas waxaa idhi ya nabiy allahu aqdabaka axadun, rasuulka ilaahay ma qof baa kaa careeyey? maa shaanu caynayka tafiidaani, labada indhood ilinta ka daadanaysa maxay tahay? markaasu wuxuu yihi maya, hadda waxaa iga tegeen malag, jibriil baa iga tegey, wuxuuna ii sheegay ana alxusayna yuqtalu bishai lfuraati, xusein webiga furaat ee karbala ay ku taala agtiisii lagu dili doono meel qarkiisaa buu ii sheegay u dhow. wuxuuna i yihi hal laka ilaa an ushamika min turbati, ciiddiisii ma ku soo ursiiyaa buu yihi bui. markaasaan ihi nacam haa. markaasuu ciid soo qaaday oo i siiyey. ilintayda markaa oohintii waa isku xajin waayey buu yihi nabigu sal slam. caaisha umu salama waxaa kaloo isla qisadaa warinayaan midkood, nabiga wuxuu midood ku yihi laqad dakala calaya albayta malakun lam yadkul calaya qablaha, malag waxaa ii soo gelay weligii aan ii soo gelin. markaasu wuxuu yihi nabnaka hada xusaynu maqtuulun, wiilkaaga xuseen waa la dili doonaa. wain shita araytuka min turbati اlardi alatii yuqtalu biha, haddaa rabtana ciidda lagu tubi dili doonaan kutusaya. ciid cas buu usoo bixiyey. xadiidkan duruqdiisa sheekh naasir silsila saxiixa kun hal boqol toddobaatan iyo kow wuxuu leeyahay duruqdiisa marka la isu geeyo xadiid sugan oo asaxay wey. intaa kadib waxaan insha allahu tacaala maanta kelimadeenu si kooban ay ugu saabsan tahay inaan ka hadalno xaaditho ama arrin dhacday muxuu ahaa 61dii hijradii nabiga sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama, yani markii laga joogo arrin dhacday. arrintaasoo xaqiiqatan aad iyo aad u xanuun badan, arrintaasoo xaqiiqatan aad iyo aad u naxdin iyo murugo badan, arrintaasoo xaqiiqatan raadkeeda iyo ta'hiirkeedu ilaa iyo hadda muslimiinta uu siyaabo fara badan oo kala duwan u saameeyey una saameynayo, mashaakil fara badan iyo dhibaato fara badanna usoo jiiday ayaan si kooban maanta u tilmaamaynaa insha allahu tacaala. arrintaas waxay dadku aada u yaqaaniin oo ay tahay waaqicatu karbala. waa meel lagu xasuuqay oo lagu laayay qoyskii nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam in badan oo ka mid a, iyo atbaac fara badan oo qoyskii nabiga meel lagu laayay weeyaan. waa meel taqriiban 72 qof lagu gowracay weeyaan ama lagu dilay. kadibna markii la dilay intoodii badnayd madaxoodii la gooyo oo inta la goostay madaxoodii, kadibna nimankaa wax laayay nimankii soo dirsaday ay hadiyo ugu geeyeen. markaa xusein ibni caliy bnu abi aalib waxaa dhalay caliy bnu abi aalib oo aan garanayno makaanadiisa iyo darajadiisa uu ku lahaa islaamka iyo muslimiinta dhexdooda. waxaa kaloo dhashay gabadhii nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalama, faatimata zahraa sayidatu nisaai ahlijanna ayaa dhashay muxuu ahaa wiilkaas asaga ah. waxaa wiilka awow u ah oo soo koriyo dhabtiisa kusoo koray rasuulullahi muxamed sala allahu alayhi wasalam, rasuulka muslimiinta, rasuulka bashariyada iyo kownkan oo dhan, rasuulka naxariista ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. rasuulkaasaa ayaa wiilkan ama imaam xusein ibni caliy bnu abi aalib awo u ah, oo waa sabdigii nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam. qur-aanka markaan fiirino waxaan arkaynaa aayado kooxahoo si gooniya u tilmaamaya sharafta iyo wanaagga qoyska nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam. aayadaha waxaa ka mid ah aayatu tadhiir, aayadda la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu soo waday uu gadaashiina uu ka yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa ahla albeyti wayudahirakum tadhiira. wa alla yidhi subxaanahu wa tacaala muslimiintu waxay heshiis ku yihiin muxuu ahaa kila alfariiqayn, kooxahooda kala duwan ama gaar ahaan weliba sunnada iyo shiicada, dadkaas labadaa kooxood waaweyn waxay heshiis ku yihiin tadhiirka dadkaas la sheegayo in ay yihiin nabiyullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam, faatimata, cali iyo xasan iyo xuseen. shantaa qof inay yihiin iyagu wax muranihi kama jiro. shantaasu inay tadhiirka asal u yihiin cid iskuma diidana. marka shantaa qof ee la dahiray mid ka mida weeye xusein ibni caliy bnu abi aalib radia allahu canhu, calayhi wacalaa ummihi wacalaa abiihi wacalaa jaddihi assalaatu wassalaam. ninkaas weeyaan xusein ibni caliy bnu abi aalib. xaa kale markaad fiiriso muxuu ahaa aayat almubaahala, aayadda la yidhaahdo iyaduna dadkii mubaahalada uu ku galay nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalama ayuu ka mid yahay xusein ibnu caliyin. marka waa darajo kale iyo makaano kale oo ku tusinaysa. oo markii nimankii najaara muxuu ahaa la oran jiray nimankii christanka haya carbeed ay u yimaadeen nabiga sala allahu alayhi wasalam, kadibna iyagu ay weliba dalbadeen oo yidhaahdeen
aan ishabaarno kenya xaqa si loo ogaado ee dadkaaga soo kaxayso qof waliba dadkiisa ha soo kaxaysto nabigu markaa nabiga ay ku soo degtay muxuu ahaa nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil aayaddaas markay nabiga ku soo degtay sala allahu calayhi wasalam oo loo bixiyay aayat libtihaal waa aayaddii ama ishabaarka ama muxuu ahayd qofka xaqa ku taagan si loo ogaado marka nabigu wuxuu u yeeray sala allahu calayhi wasalam muxuu ahaa oo laga bilaabay nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum marka nabigu wuxuu u yeeray alxasana waalxusein ayuu nabigu u yeeray sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ku xigay wa nisaa'ana wa nisaa'akum nabigu xaasaskiisii kale uma yeerin wuxuu u yeeray gabadhiisii faadimati zahraa calayha asalaam calayha wa calaa abiha asalaam ayuu nabigu u yeeray sala allahu calayhi wasalam oo booskii dumarkana iyada ayaa buuxisay markii la yidhi wa anfusanaa wa anfusakum nabigu wuxuu u yeeray naftiisa iyo caliya bnu abi aalib radia allahu canhu ayuu nabigu u yeeray sala allahu calayhi waalihi wasalam halkaa iyaduna waxay ku tusin sharaf kale iyo qiimo kale ayay ku tusinaysaa iyaduna oo uu leeyahay imaam alxusein radia allahu canhu ayay ku tusinaysaa iyo qofka uu yahay imaam alxusein haddana waxa uu yahay markaan fiirino aayadda la yidhaahda aayat almawadda dadka mawadada uu alla subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay nabigiisa inuu ka dalbado muslimiinta ayuu kow ka noqonayaa oo waa ka nabiga lagu yidhi waxaad tidhaahdaa qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurba ila almawaddata fi lqurba ila almawaddata fi lqurba sidaa dha nebi moxamedow sala allahu calayhi waalihi wasalam risaaladan aan idin soo gaadhsiiyey bini aadminimadan aan idin soo gaadhsiiyey karaamada iyo sharafta aan idiin yeelayo insaanka qiimaha leh idinka dhigay wax kale oo wax idinkaga rabaa ma jiro ilaa inaad qaraabadayda ii jeclaataan qaraabadayda ii ixtiraamtaan qaraabadayda ii xiriirisaan qaraabadayda ii qadarisaan sidaa mooye wax kaloo idinka doonayo ma laha ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaraabadaa nabigu uu codsanayo in loo xiriiriyo in loo jeclaado in loo qadariyo in loo garab istaago nabigu uu codsanayo sala allahu calayhi wasalam waxaa ugu horeeya الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبوه الرئي مركا أو قيب كان نقوني مركا هذا حسين وقف كاس ويان وحاصل يابله لحظة يكون سنة كلية مركي لقد جوجو هجردي أووجس هجردي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن إسقى يتضوات يلا بقف أو تقريبا دور يلا باتن كمدوا هاي قوس كي نبي محمد يهين إن لقوا ما ذكر بلا oo lagu laayay karbala xaqiiqatan waa wax la yaab la weeyaan dadka dilaya ee laynaya ee genocide ku sameynaya ee waliba gowracaya madaxooda goynayana waa kuwa kale oo shahaadanaya weey waa ummata muhammad kama hum yaquluun sida ay leeyihiin waxaan nahay bay leeyihiin ummadii nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam xaqiiqatan marka wax la isweydiiyo waxa la isu weydiiyo weeyaan waxay marka isweydiintu tahay إمام حسين رضي الله عنه عليه السلام مركا وبحيو وكبحيو مكة إيا مدينة أو هلكا آذي يمحو دوني لكن وحو حسين دوني عليه السلام السقا إنه شيء وحو دوني وضعي مركا جرينا وضع متأزم وي أمة مسلمة قارهان جانب السياسي قال لقى انحرافي منهج كنبوضة هي خلافة الراشدة وملك عضوضة وأنقفنا أمنا حريسانين قفنا احترامين قفنا قدرينين يا طائفة يرى كحرسن يا وذا إسقى محو كشقيستو يا أمده مركا هوجانك وهي وهوجانك وهي نمن ستوسة مركا وجوه الرئيس في تاريخ الأمة مسلمة ستوسة وولي بقى أنك بشر هين محوها خمر عبك يا فسقية يا لينتا يا دع يا بوبك يا كفسية أنا عندنا أنا وحشونين يا أمده حكومية وإحنا وذوقنا هي أيها الإخوة والأخوات الحسين بن علي رضي الله عنه شرفت هي مكانة دوليه هي مقام كسره إلهي سبحانه وتعالى أسيي وحكفلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم أوؤها وأيو إن أنتي سي فاطمة أياد شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبيه أيوها وسيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا isagiiyo walaalkii alxasan labadaba manaaqib fara badan iyo fadaa'il fara badan ayaa u sugan
oo siirada iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu yaqaano. dilkiisii oo ahaa dil aynu aada iyo aad aynu uga xunnahay, murug qalbiga ku keenaya, loona baahayn qof walba oo muslimiba uu ka murugoodo. waana musiibo weyn oo masaa'ibta muslimiinta soo martay ka mid ah. qatlu lxusein musiibat min acdam almasaa'ib, waida dakaraha almuslimu yanbaqii an yaquula ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. dilkii xuseen radia allahu canhu waa musiibatun min acdam almasaa'ib, masaa'ibta kuwa ugu waaweyne muslimiinta soo maray ayay ku jirtaa. waida dakaraha almuslimu yanbagii an yaquula ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. mar walba oo qof muslim uu dilkii xuseenay sidii foosha xumayd ee loo dilay, ee dad islaam sheeganaya ay u bareereen inay qudha ka gooyaan inankii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam awowga u ahaa, maalintaana yacni adduunkan kumuu noolayn inan uu nebi awow u yahay ilaa alxusein radia allahu canhu. waa masiibo weyn oo cadiima, oo min acdami almasaa'ib. qofka muslimku markuu xusuustana loo baahanyay inuu yidhaahdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun.